xubinta nolosha iyo jacaylka waxaan diiradda ku saari doonaa ereyga jacayl waxaa lagu macneeyo qaabka lagu hanan karo jacaylka iyo sababaha ama waxyaabaha burburin kara iyo sida lagu ogaan karo jacaylka dhabta ah. jacaylku waa mid dhab ah waxa uuna leeyahay qeexitaano fara badan balse waxaynu ka soo qaadanaynaa midda ugu muhiimsan. haddaba jacaylka waxaa lagu macneeyaa amaba lagu qeexaa inuu yahay dhihidda dareenka ay naxariisi ku dheehan tahay iyo dareen la yaab leh uu alle ku dhaliyo qofka bini'aadamka ah, waxaana lagu tilmaamaa dacar korka ka qaraar dhexdana ka macaan. ruuxii aan jacaylka marka hore qaraarkiisa aan soo marin amaba aan soo dhex mushaaxin dhadhanka macaan ee uu jacaylku leeyahay uma badna inuu muudsado. jacaylku waa ficil iyo dareen waxaana saldhig u ah qalbiga. kalsoonidiisu waa aragtida iyo codka. waxaa cadow u ah shakiga iyo niyadjabka. waxa uuna leeyahay dareen dhiiran iyo dareen farxadeed oo la dugsado kuna dareensiiya inaad tahay ruux wax jecel amaba la jecel yahay. dareemaha jacaylka ayaa ah mid aad u culus sababtoo ah markii aad raadiso daydayga ruuxa aad jeceshahay iyo kadaalid la-aanta ruuxa aadan indhaha u dhammayn karin ee aad hamiga ku hayso doonaysana inaad haasaabo kalgacayl la higsato. jacaylka ayaa dirqi hadal kugu yidhaahda, qalbigana fariin u dira, dareen wadaha u dhiiba, sanduuqa codka dhex dhiga, dabadeedna danan iyo dhawaaq sida ku amra afka. tusaale haddii aanu u soo qaadanno jacaylka ka bilowda daymada amaba aragtida dabadeedna ku barbaara bogga iyo laabta. marka uu kaa hor yimaado ruuxa aad jeceshahay misena aadan indhaha u dhammayn karin oo aadan waxba u sheegin karin, indhuhu waxay ku noqdaan sida toosh oo kale, waxaana jirka ka soo burqada dhidid shucuur la moodo marka ay malakiyuuladu qashin saaraan hakadka ay naxdintu keentay darteed iyo xusuustii ka dhalatay jacaylka. jacaylku waa erey marka afka laga dhahayo aad u fudud balse marka uu si dhab ah kugu yimaado aad u culus. qaab ceenkee ah ayaa lagu hanan karaa. waxaa lagu hanan karaa jacaylka habab kala duwan oo u baahan taxadir iyo in la ilaaliyo. waxaana ka mid ah jacaylkaaga waa inuu ahaadaa jilliinkiisa hore mid daacad ah, waa inaad la timaadaa hadallo soo jiidasho leh, waa inaad leedahay dulqaad iyo samir buuxa, waa inaad muujisaa dadaal aad ku hanan karto ruuxa aad doonayso inaad la wadaagto jacaylka, waa inaad ilaalisaa ballanta iyo waqtiga oo aad kasban karto ruuxa aad jeceshahay. dadka sida sahlan ku baabi'iya jacaylka ayaanan garanayn inuu jacaylku yahay mid abuura amaba sameeya kalsooni, kala dambayn, isqadarin iyo farxad dhex marta labada ruux ee uu ka dhexeeyo jacaylka. su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sababaha burburka ku keeni kara jacaylka.
sababaha burburka ku keeni kara jacaylka ayaa ah qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin jacaylka oo marka hore ku bilaaban daacadnimo, mucaashaqiinta qaarkood oo qaata hadallada diradiraalayaasha, waalidiinta qaar oo aanan ogolayn in lala haasaabo gabdhaha iyo wiilasha ay dhaleen, ballanta oo laga dibdhaco iyo qodobo kale oo kuwaasi la mid ah. sideese looga gudbi karaa? waxaa looga gudbi karaa mucaashaqiinta oo iska dhigatira waxyaabaha dhaawici kara jacaylkooda, mar walibana ay ku dadaalaan sidii ay ku guulaysan lahaayeen. sidee loo ogaan karaa jacaylka dhabta ah? inta aanan u guda gelin su-aashaasi jawaabteeda, lamaanayaasha wadaaga jacaylka inta badan wadajirkoodu waa mid aan dhaafsiisnayn, iska helid ku salaysan marxalad dareen doobeed iyo dan isu gudbinta guud ahaaneed, ayadoo hadafku yahay maalmo ayaa haddana mararka qaar waxaa laysla gaaraa ilaa iyo heer guur. waxaa jira dad badan oo guur wadaaga iyo kuwo kale oo uu ka dhexeeyo xiriirka gacayl iyo jacayl sanad jirsaday amaba mid ugub ah, ayadoo lamaanayaashaasi laga dareemayo farxad iyo reynreyn, kuwaasoo aad moodo inaysan niyadoodu deganayn oo ay isweydiinayaan su-aalo ay ka mid yihiin hebel amaba heblaayo ilaa intee ayuu ku jecel yahay amaba ay ku jeceshahay. haddii aan dib ugu soo laabanno jawaabta su-aashaasi, inta badan inta aadan ogaan jacaylka dhabta ah waa inaad naftaada weydiisaa su-aalo adiga oo cabiraya marka hore heerka uu jacaylkaagu gaarsiisan yahay. heer intee la eg ayuu gaarayaa kalsoonida aad ku qabto lamaanahaaga? kalsoonidu waxay mararka qaarkood amaba mararka qaar ay keentaa inaad u nuglaato ruux kale adiga oo ka cabsi qaba in lamaanahaagu uu isbedeli karo mar kasta. midda kale waa inaad u diyaargarowdaa oo aad la macaamilootaa marxalad kasta oo kugu soo wajahda samaan iyo xumaan. waa inaad isweydiisaa, si fudud ma lagu carqaladayn karaa jacaylka aad u qabto lamaanahaaga iyo kuwo kale oo la mid ah? waxaad ku ogaan kartaa heerka ugu dambeeya ee uu gaarsiisan yahay jacaylka aad u qabto lamaanahaaga. soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaad ruuxa si wanaagsan ugu baran kartaa laba arrimood oo kale ah safarka iyo sariirta. macnaha labadaas eray ay xambaarsan yihiin ayaa ah sidan soo socota. safarka ayaa ah midka dhibta badan misena aad u fog, dadkuna ay isku bartaan, barashadaasoo ay ka mid tahay dabeecadaha uu qofku leeyahay iyo wixii la mid ah. sariirta ayaa iyaduna waxaa lagu macneeyaa in ay tahay ruuxa aad guur wadaagtaan, aad isguursataan, ayaa waxaa lagu ogaadaa qofka dabeecadihiisa qalafsan ee sida gaarka ah u qarsoonaa. si kastaba ha ahaatee, ruuxa dhabta kuu jecel ayaa ah midka kugu jecel waxaad ahayd, waxaad maanta tahay iyo wax kastoo kugu dhaca birito, midka kula qaybsanaya. dhegaystayaal, waxaa intaa inoogu eg xubinta nolosha iyo jacaylka oo aan ku soo qaadanay sida ugu fudud ee lagu qeexo jacaylka, waxyaabaha lagu hanan karo, sababaha burburka ku keeni kara iyo weliba sida lagu ogaan karo jacaylka dhabta ah. waxaa idiin soo saaray oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Cumar Maxamed Kulmiye. jacaylkan qabriga u qode jacaylkan qabriga u qode ku akhriyay quraankan ku qasmiyay ubaxay nafta oo soo idhiba ku akhriyay quraankan ku qasmiyay ubaxay nafta oo soo idhiba soqon dilaanina way qabaa soqon dilaanina way qabaa mid kalena qalbigan kala qooqaya mid
kalena qalbigaan kala qooqaya qasab gurmiyaa seefi qalab miyaa qasab gurmiyaa seefi qalab miyaa qarnigiyo tiradu ma labaatan qoranba qarnigiyo tiradu ma labaatan qoranba ninkii qayrkiro xirayow soo qoyso adiguna ninkii qayrkiro xirayow soo qoyso adiguna